soo dhawaada daawadaya shalay hadday Maryan Nuur adduunka ugu hor eebaysay maanta waxa buurta igala baxay gabadha ayaa iyo dhammaantood gabdhihii yararka ahay oo xulka qaranka Soomaaliyeed ku matalayay tartankii dhex maray Suudaan iyo Soomaaliya maalinta boodada ka jabnaayay ninkii buurta igala baxay beerka ka ogsoonay waxaan idiin koobayaa arrintaas oo faahfaahsan laygarey oo sheergarey muuqaalkan soona falo garey page Maxamed Cali Maxamed haddii aad nagu cusub tahay si aad ula socoto xogaha xasaasiga ah ee maalin walba aan halkan kusoo gudbiyo haddii aan ku hormaro xasuusin yar oo Maryan Nuur waxaan ku rajaynaynaa guul insha Allah xabadda la ridi rabaa come on Maryan Nuur forza Soomaaliya soo Maryan Nuur waa bilaamad tartankii waa ordayaan waa socda Maryan Nuur waa qofka ugu dambeeya ilaahay hadda waa la ordaya koobkii waa socdaa Maryan Nuur ma hayna ilaa hadda Maryan meede qofka matalaya Soomaaliya mee khayr Allah siiyo walaashay Maryan Nuur waa dadaashay shalay haday tan ugu dhacday maantana casharkan ayaa dhigay marka lagu leeyahay masinay habluhu sumcad kala haboon kala badan samaan waa kaasa saddex gool baa dhalisay kaligeed waxa tartan ciyaareed adag nooga qayb galay gabdho 17 jir ah ayagoo waliba la tartamay digooda gabdho 17 jir Suudaanis ah isla markaasna way ka badiyeen afka ayay ciid u dareen ciyaartan waxay ku soo dhamaatay 8-2 gabdhaheena maalinba weji ka filo waana gabdho dhashay filo taabsa page Maxamed Cali Maxamed si ay ula socoto xogaha joogtada ee aan soo galin halkan